waxaa duleedka baydhabo isku horfadhiya ciidamada daacadda cabdicasiis laftagareen iyo sidoo kale kan kuwa maamulka koonfur galbeed oo kaashanaya ciidamada dowladda federaalk oo baydhabo jooga ayaa isku horfadhiya duleedka baydhabo iyadoo laga cabsi qabo inuu dhexmaro dagaal ee labada dhinac kadib markii saacadihii lasoo dhaafay ciidamada daacadda laftagareen ay sawiro ay ku baahinayeen baraha bulshada ay ku sheegeen inay ka dulqaadi doonaan shacabka reer koonfur galbeed dulmiga oo ku hayo hogaamiyaha maamul goboleedkaasi Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe. sidoo kale ciidamada ammaanka iyo sidoo kale kuwa sirdoonka iyo ciidamada kala duwan ee jooga baydhabo ayaa lagu amray inay ka shaqeeyaan amniga sidoo kalena ay ka hortagaan weerar kasta ay damacsan yihiin ciidamada daacadda cabdicasiis laftagareen oo wacad ku maray inay qabsan doonaan magaalada baydhabo. duleedka baydhabo waxaa dhaqdhaqaaqyo culus ka wada ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed iskaashanaya ayagoona sheegay inay ka hortagi doonaan cid kasta isku dayeysa inay carqaladeyso amniga magaalada baydhabo. dhaqdhaqaaqa aad u culus ayaa ka taagan duleedka baydhabo isla markaana suuragal ay tahay in mar kale halkaasi uu dagaal ku dhexmaro ciidamada daacadda laftagareen iyo sidoo kale kuwa maamulka koonfur galbeed oo kaashanaya ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya. wixii faahfaahin kale ka soo kordha halkan الدكتورة رحاب عبد الحليم دكتور رحاب عبد الحليم اختر ku takhasusay cudurrada haweenka iyo dhalmada ee isbitaalka Albirri. waxaan idinku bishaareynayaa war weyn oo farxad leh laga bilaabo 1 bisha Agoosto ilaa 31 Agoosto isdiiwaangelinta ticketka ama lambarka qaybta haweenka iyo dhalmada waxay noqon doontaa bilaash. waxaan si diiran u soo dhaweyneynaa dhammaan hooyooyinka uurka leh si ay ula socdaan caafimaadkooda iyo kan ilmahooda, haweenka qaba cudurrada haweenka si ay u helaan baaritaan iyo daaweyn sax ah, lamaanayaasha la tacaalaya dhalmo la'aanta si loogu sameeyo baaritaan iyo qorshe daaweyn oo ku habboon. isbitaalka Albirri waxaad ka heli doontaa adeegyo caafimaad oo casri ah, baaritaano dhameystiran iyo dhaqaatiir khibrad leh oo diyaar idiin ah. halumin fursadan ka faa'iideyso ticketka bilaashka ah laga bilaabo bisha Agoosto. ونرحب بكم بمستشفى البر العام في المنطقة 4 ومرحبا بكم.